kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Dhuusamareeb maxaa ka soo baxay kulankii madaxweyne Farmaajo uu la yeeshay ra'iisul wasaare Khayre madaxweynaha Galmudug oo ogolaaday dalab uga yimid madaxweyne Farmaajo kulan xasaasi ah oo xarunta madaxtooyada hadda uga soconaya madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe haddaba maxay ka wada hadlayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo ku biiriyay shirka Dhuusamareeb maxaa ka jira inqilaaf uu u dhaxeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mucaaradka oo sheegay in arintaasi ay tahay xeelad siyaasadeed qodobadaas iyo xogihii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda ee dalka ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa warar la xiriira dagaalka Liibiya ciidamada dawladda Turkiga iyo kuwa dawladda Liibiya oo ku wajahan sirta iyo Ruushka iyo Masar oo dagaal isku diyaariyay qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa insha Allah waa galab 19 bisha 7 ee July sanadka 2020 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka anagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib noo celin kara waxaad ku mahadsantiin inaad taas nala fahantaan ee fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararka arrimaha siyaasadda dalka olole xoogan ayaa ka bilowday magaalada Dhuusamareeb iyadoo oo sidoo kale ay barbar socdaan kulamo u dhaxeeya madaxweynaha dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada saacadihii ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo gooni ah la qaatay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha dawladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftigareen warar aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre ku wargeliyay qorshayaasha madaxtooyadu la tagayso shirka furmaya iyadoo oo xukuumaddu ay tahay in qorshayaashaas ay raacdo inkastoo aanan xog badan laga haynin waxa ka soo baxay kulamadaas haddana ila wareedyo aan helay ayaa waxa ay sheegayaan in cadaadiska ugu xoogan uu saaran yahay dhanka Villa Soomaaliya oo doonaysa qorshe aanan ahayn kan ay wataan maamul goboleedyada xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in shirkan looga hadlayo hanaanka geedi socodka siyaasadeed iyo amni ee dalka qabsoomida doorasho waafaqsan dastuurka sharciga doorashooyinka iyo xeerarka kale ee dalka dhammaan qodobadaas ayaa loo arkaa kuwa ka soo horjeeda natiijada wajigii koowaad ee shirka maamul goboleedyada ee horay u soo dhamaaday dhanka kale madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayay isla garteen baliri in shirkan ay dawladdu iyadu hormuud ka noqoto madaxweyne Qorqor waxa uu aqbalay in madaxweynuhu uu hogaamiyo shirkan kadib kulamo saacado badan qaatay ayuu inoo sheegay sargaal Galmudug ka tirsan oo nala hadlay laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa maamuusi doona sida wanaagsan ee ay Galmudug u martigelisay shirkan oo ah mid ah shacabka Soomaaliyeed ay si weyn u sugayaan in fariintaas madaxweynuhu uu u diro shacabka Soomaaliyeed iyo dadka reer Galmudug dhanka kale war goordhow ku soo dhacay warqabadkeena ayaa sheegaya in kulan aan caadi ahayn uu xarunta madaxtooyada Galmudug uga socdo madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe labada mas'uul ayaa kulankooda u yimid kadib markii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ay dadaal badan ku bixiyeen qabsoomida kulankaas ila wareedyada aan helayno oo kulankan inaga soo gaaraya waxay sheegayaan in diiradda lagu saarayo kulanka sidii loo xalin lahaa khilaafka muddada dheer ee labada dhinac kaas oo keenay in dawladda ay markaasi Soomaaliya ay Jubbaland kula dagaasho gobolka Gedo isla markaana natiijadii doorashada Axmed Madoobe ay dawladda Soomaaliya qoonsawayso madaxweynaha Jubbaland ayaa hordhigi doona madaxweynaha Soomaaliya arrimo ay ka mid yihiin in uu ka garaabo dhibaatadii maamulkiisa uu geystay xariga wasiirka amniga dagaalkii Gedo aqoonsiga ku meel gaarka ah ee Jubbaland oo uu ka dhigo mid rasmi ah iyo arrimo kale dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa doonaya baa leeyahay in maamulka Axmed Madoobe ay hoos yimaadaan dawladda isla markaana xiriirka ay u jaraan dalalka shisheeye oo ay Kenya ka mid tahay kulankan ayaa natiijadiisa si weyn loo sugayaa waxaana la filayaa in uu wax weyn u noqdo shirka la filayo in madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay yeeshaan madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kale isla maanta la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo garowga ka soo safri doona Puntland iyo dawladda Soomaaliya ayaa arrimo badan isku qabtay maamulka garowga ayaana horay ugu eedeeyay dawladda Soomaaliya in ay abaabushay mooshin xilka looga tuuri lahaa Saciid Cabdullaahi Dani
docda kale wafdi horudhac u ah gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho cumar maxamed cumar filish ayaa waxa ay gaareen magaalada dhuusamareeb iyadoo maalinta berita la filayo in gudoomiyaha gobolka banaadir uu gaaro caasimada galmudug si uu ugu biiro shirka madasha ee ka furmi doona magaalada dhuusamareeb cumar filish oo ah duqa muqdisho ayaa la filayaa inuu shirka ka qayb galo waxaana la sheegayaa in ka qaybgalkiisa uu gacan weyn ka geysanayo madaxweyne farmaajo oo doonaya in xubnaha kura'yiga ah ee shirka ka qaybgalaya ay bataan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa waxaa laga yaabaa qadiyadaha la xiriira matalaada ee gobolka banaadir yeelatay in shirkaas uu soo hordhigo sidoo kalena waa markii ugu horreysay ee maamulka gobolka banaadir ay ka qaybgalayaan goob masiirka ummadda soomaaliya lagu go'aaminayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dhinaca kalena maamulka galmudug ayaa si weyn isugu howlay in marka hore isfaham la dhex dhigo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ka hor inta uusan shirka dhuusamareeb furmin dhinaca kale wariye ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegaya in madaxdu ay sidoo kale samaynayaan isbahaysiyo ay isku aragti yihiin waxaana isha lagu wada hayaa wax ka soo bixi kara shirka la filayo inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb haddaba waxaa jira arrin si weyn saacadii lasoo dhaafay loo hadal hayay oo si weyn xogteeda ay bulshada usoo dhexgelaysay arrintaas ayaa ah muddo kororsi loo sameeyey dowladda soomaaliya si looga wada shaqeeyo in doorasho la wada ogolyahay ay dalka uga dhacdo qorshahan ayaa waxaa xoogiisa watabaa leeyahay dowladda waxaana ay taageero uga haysataa guddiga doorashooyinka qaranka oo hore u sheegay in waqti dheeraad ah ay u baahan yihiin sidoo kale waxaa arrintan taageeri kara maamulada ku dhowdhow dowladda soomaaliya sida koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle qorshahan waxaa sidoo kale kasoo horjeeda baa laleeyahay ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre oo aaminsan in dib u dhac doorashada ay keeni karto qallaaso siyaasadeed iyo mid amni haddaba iyadoo uu jiro kala aragti duwanaanshahaas ayaa haddana xisbiyada siyaasadda dalka waxa ay qabaan in arrintan ay tahay mid lagu indhasarcaadinayo dadka oo ay tahay siyaasad ay dowladdu isla og tahay oo isla wataan ujeeddada ugu weyn ee warbaahinta loo marinayo kala aragti duwanaanshaha labada mas-uul ayaa ah in mid lagu indhasarcaadiyo mucaaradka oo ay iyadu meel adag iska taagtay ama mucaaradku ay meel adag iska taageen muddo kordhinta balse ay filla soomaaliya rabto in xeelad loo dhan yahay ay ku shaacayso in dalka ay ka qabsoomi karin doorasho ayuu yidhi sarkaal ka tirsan madasha xisbiyada qare ee uu hogaamiyaan madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay doonayso muddo kordhin ilaa hadda ma cadda qaabka ay villa soomaaliya uga dhaadhicinayso madaxda maamul goboleedyada dalka iyo muddo kordhin dadban in ay isla afgartaan taasi oo ay qayb ka tahay sheegashadii xaliimiyaro ay ahayd in doorashada ay xilligeeda ku qabsoomeynin howlo farsamo dartood loona baahanya in muddo kororsi la sameeyo shirka dhuusamareeb ayaa haddii laga soo saaro arrinkaas oo lagu xoojinayo mowqifka xaliimyaray uu dhabar jab weyn ku noqon doona mucaaradka soomaaliya oo iyagu ku kaliyeysan doona diidmada mowqifkaasi hase yeeshee ma muuqato taas waxa ayna u badan tahay in shirkaas lagu kala tegi doono maadaama farmaajo aanu ka hari doonin mowqifkiisa ku aadan muddo kororsiga si kastaba haatee in qaybaha aan shirka joogin ay natiijo ay ku qancaan ay markaasi ka soo baxda shirku waxa ay tahay nuxurka iyo qodobada uu markaasi ay ku heshiiyaan dowladda iyo maamulada halkaa ku sugan alla subxaanahu watacaala miraha shirkaasi ha ka dhigo wax ummadda soomaaliyeed maslaxad u ah insha allahu tacaala ugu dambeynna dagaalka libiya haddii aanu fiirino in ka badan 200 oo teknika ah oo ay leedahay dowladda caalamku aqoonsan yahay ee libiya ayaa gaaray duleedka magaalada sirta oo ay gacanta ku hayaan ciidamada ka amar qaata general khalifa xaftar dowladda libiya ayaa bilihii lasoo dhaafay dib u qabsatay deegaano badan isla markaana soo afjartay duulaankii 14 bilood socday ee xaftar uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimada Trablis ee wadankaasi libiya xukuumadda Tripoli oo gacan military ka helaysa Turkiga ayaa hadda doonaysa inay la wareegto magaalada sirta iyo saldhigga ciidanka cirka ku leeyihiin Jufra oo muhiim u ah maadaama ay ku yaalaan nawaaxiga goobaha laga soo saaro batroolka dalkaas balse dagaal ka dhaca sirta ayaa laga cabsi qabaa inuu dhalin karo khasaare aad u xoogan dhanka kale xanjabaad xoogan ayaa ka soo yeertay ruushka iyo masar maraykanka ayaa sheegay in ay hayaan xog sheegaysa in ruushku uu diyaarado u soo dirayo dalka libiya si ay gacan uga siiyaan khalifa xaftar oo ay u taageeraan
diyaaradahan oo la sheegay in ay ku sugan yihiin madaarka militariga ee Jufra oo ku yaala duleedka magaalada Sirta. Dowladda Masar oo ka mid ah wadamada taageera Khalifa Haftar ayaa sheegtay in ay iyaduna ciidamadeeda soo gelin doonto Liibiya haddii Haftar laga qabsado Sirta. Khalifa Haftar oo taageerada ka helaya Masar, Imaaraadka Carabta, Ruushka iyo Faransiiska ayaa hadda maamula inta badan gobolada bari ee wadanka Liibiya, waxaana weli gacantiisa ku jirta xarumaha ugu muhiimsan ee laga soo saaro batroolka. Midowga Yurub ayaa sabtidii shalay tahay sheegay in ay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan wadamada shisheeye ee ka qayb qaadanaya dagaalka Liibiya, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay jabiyeen cunaqabateyntii hubka ee dalkaasi la saaray. dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Italy ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in cunaqabateyn la soo rogo laguna rogo wadamada hubka ee ku daabulaya dagaalka ka soconaya wadankaasi Liibiya. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. daawadayaal isha ku hay Warqad TV, waxa aan idiin soo gudbin doonaa wararka degdega ah ee ku soo kordha shirarka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb. inta ka horeysa nabadgelyo, caafimaad iyo bashbash.